kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Harriet oo muddo 18 bilood ah ku sugnayd Soomaaliya dhawaana dawladda waddanka Ingiriiska waxay sheegtay ama ku dhawaaqday inay bedelayso safiirka dalka Soomaaliya waxayna soo magacawday safiir kale oo iman doona bisha January ee sanadka cusub ee 2017 safiirka dawladda Ingiriiska ee Soomaaliya Harriet ayaa waxa ay noo ogolaatay inaan waraysi aan kula yeelano gudaha safaaradda Ingiriiska ee magaalada Muqdisho ee ku dhex taala xarunta xalane ee Muqdisho oo ah xarunta ay kulmisay dhammaan safaaradaha reer galbeedka ee dalka Soomaaliya hadda ku sugan safiiradda oo aan filayo in su'aalahayga ay noqon doonaan kuwa quseen doona arrimaha amniga iyo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo waddanka UK oo aan ognahay in UK ka mid tahay wadamadii ugu horeeyay ee Soomaaliya u fidiyay deeqaha xagga waxbarashada xagga tiknoolajiyada iyo dhinac kasta oo siyaasadda ay ka mid tahay dhawaana dalka Ingiriiska Soomaaliya waxay u soo direen askar ay sheegeen in dhinac farsamooyinka iyo tababarada ay ka caawinayaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa Soomaalida waan filayaa in ay noqon doonto safiiradii ugu horeysay oo Soomaaliya loo soo diray tan iyo 25 sano kadib UK-na waxay ka mid ahayd wadamadii ugu horeeyay ee safiirkooda u soo diray Soomaaliya su'aasha ugu horeysa ee safiirka aan rabin aan hordhigo waxay tahay safiir aad ku maasan tahay inaad la hadashay idaacadda dalsan muddo 18 bilood ku sugnayd Soomaaliya waxaad noqotay safiiradii ugu horeeyay ee Ingiriisku ay u soo diraan Soomaaliya muddo 25 sano kadib muxuu ahaa dareenkaaga berigii aad imaanaysay dalka Soomaaliya iyo hadda oo aan kula hadlayo So thank you very much and great to meet you as well and to have this opportunity. Before I came to Somalia, what you see in the UK media and in the international media had been a very negative portrayal of Somalia. waad mahadsan tahay aad bay iigu weyn tahay fursaddan aan kugula hadlayo ka hor inta aan iman Soomaaliya warbaahinta dalka Ingiriiska iyo kuwa kale ee caalamka waxaan ka arkayay waxay ahaayeen waxaan wanaagsaneyn waxa la ii muujiyay waxa ka mid ahaa in dadka Soomaaliyeed weli ay laabtay ku hayaan dhibaatadii Black Hawk Down dagaalo sokeeye iyo weerar kaga imaanaya xagga argagixisada laakiin xaqiiqdu sidaas ma ahan dalka wuxuu ku jiraa marxalad dib u dhis oo aad u weyn iyo sidoo kale soo kabasho wanaagsan markii aan imid halkan waxaan helay waxay ahaayeen deegaano kala duwan oo ammaan ah waxaan sidoo kale aan arkay dad niyad sami ay ku laran tahay waxaan kaloo aan kuu sheegi karaa intii aan joogay Soomaaliya waxaan arkay siyaasiyiin iyo dadka Soomaaliyeed ee bulshada rayidka in intoodaba ay wada doonayaan in dagaalo sokeeye laga baxo oo nabad la aado waxaan u maleynayaa intaas ay tahay wax wanaagsan and so they would rather talk and find solutions and negotiate instead of fighting. So I think that's a really positive, good thing that I found and that I take away with me. UK waxay ka mid tahay wadamada Soomaaliya ka taageera nabadgelyada iyo ammaanka laakiin walaac ayaa dhinaca ammaanka ka jira maxaad nooga sheegi kartaa ilaa hadda horumarka laga sameeyay dhinaca ammaanka This is the most important area in Somalia because if you can't have peace building and if you can't have security then it's very difficult for other areas to flourish and to grow. tani waa muhiimad wanaagsan haddii aadan haysan goob ammaan ah dhaqaaq ma samayn kartid sidaa darteed waxaan xoogga aan saarnay ciidanka nabadgelyada biliiska UK waxay tababartay ku dhawaad 600 oo askari oo biliis ah oo ku sugan magaalada Baydhabo sidaas la mid ah 600 oo kale ayay tababartay oo ku sugnaa magaalada Kismaayo waana sii wadaynaa tusaale ciidamadaasi aan tababarnay nabadgelyada doorashooyinka ay wax ka sugayaan madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweyne Axmed Madoobe labaduba markii ay ila hadlayeen waxay ii sheegeen in ciidamadaas ay si wanaagsan ay u heleen tababar wanaagsan toddobaadkii hore Kismaayo iyo Baydhabo ayaan booqday halkaas xarumo ayaan ku leenahay inkastoo xarunteena dhexe ay ku taalo magaalada Muqdisho ay tahay midda hadda ciidamadeenu ay ku bixinayaan xagga farsamooyinka waxa ay la dagaalamayaan qaarkood kooxda Al-Shabaab waxayna yihiin darees iyo qalab ku filan marka tani waxay muujinaysaa dareen ah in xoogaa horumar ah la sameeyay marka dagaalkaas waxaa ku jira ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee
dalka Ingiriiska David Cameron waxa uu Soomaaliya u soo diray ciidamo tababarka iyo farsamada ka shaqeeya kuwaas oo hadda jooga Soomaaliya taageero cinkii ah ayay bixiyaan halkeesa joogan. So we have about 60 British troops in Somalia. And what they're doing is not fighting, but exactly as you said, providing logistical support, expertise, xaqiiqdii Soomaaliya waxaa naga jooga 600 oo askari oo boqortooyada dalka Ingiriiska ka socda waxay sameynayaan ma ahan dagaal inay galaan xaqiiq weeye sida aad tiri waxay bixinayaan gargaar degdeg ah farsamooyin iyo taageero iyagoo khubaradooda ay la socdaan tusaale gargaarka degdega iyo taageerada farsamooyinka waxay siiyaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ujeedka laga leeyahay waxay tahay in iskaashi ay sameeyaan labadaas dhinac si ay u guuleystaan waxay dhinaca kale caawin ka geystaan ciidamadaasi dhinaca doorashooyinka Soomaaliya askarteena waxay bixinayaan farsamooyin iyo gargaar kale oo degdeg ah beesha caalamka oo dawladda UK ay ka mid tahay walaac ay ka muujinayaan hanaanka doorashada maxay tahay walaac gaarka ah oo ay UK qabto. So first I should say that I think there has been some real progress in this election and it's important to recognise that. So for the first time in a long time, people in communities, in the regions were able to vote. taas waxaan dhihi karaa in ilaa iyo hadda la sameeyay horumar way dhici kartaa inay yaraadaan laakiin waxa wanaagsan in la garwaaqsado ayaan qabaa mar fog iyo mar dheer middo waxaan ogahay in shacabka Soomaaliyeed ay maalin codkooda ay ka dhiiban doonaan doorasho sida aad la socoto Soomaaliya waxaa ka dhacay doorashooyin gaar ahaan magaalooyinka Cadaado Kismaayo Jowhar iyo Baydhabo iyo Muqdisho meelo kale oo fara badan meelo ka mid ah Soomaaliya oo doorashooyinkaas ay ka dhaceen dhawaan waxaa ka soo yaray walaac midda ugu horeysa waxay ahayd isla xisaabtan meelo qaar nacbashooyinkii ka yimid isla durbaba waxay u muuqdaan kuwa la xaliyay kuraas ayaa sidoo kale lagu kordhiyay xubnaha aqalka sare ee dalka waxaa la gaaray go'aan waxaan u fahmay in wadaxaajood la gaaray go'aankaasna ku soo baxay wadaxaajoodkaas waxaa lagu dhisayaa Soomaaliya laakiin waxa ay ila muuqataa wax cajiib badan hadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa la soo dhisay waxaan la filayaa inay iyagu ay doortaan madaxweynaha dalka dhinaca kale ma dhihi karo macquul ma ahan xubnaha lagu kordhiyay aqalka sare ee dalka laakiin waxaan u maleynayaa in la hayo dastuur la raaciyo kaas oo qeexaya in baarlamaanku uu leeyahay cod la tixgeliyo nidaamkaasna waxa uu ahaa mid dastuuri ah doorashada Soomaaliya aragti ahaan waxaa ka muuqda isku hor imaad u dhaxeeya hoggaanka madasha iyo beesha caalamka sideed u aragtaa hanaanka ay madasha doorashadu u fulinayso. So it's true that we've had some areas where we've disagreed with the National Leadership Forum and I think the main frustration for the international community is that once you agree some rules taas waa sax meelaha qaar lagu aysan raacin hogaamiyaasha madasha qaranka jahwareerka ugu weyn ee beesha caalamku waxa uu yahay shuruucda qaar oo la isku raaco jahwareerkaas aad ayaan ugu xumahay waxa ay mararka qaar ay keeni karaan in kalsoonidii ay meesha ka baxdo waxaan dhihi lahaa hogaamiyaasha madasha qaranka waxay fuliyeen howl qaran waxaan dhihi lahaa waa in la fuliyaa go'aanada. So in principle it's a really good organization, it's made some good decisions. The issue is then we need to find a way to stick to the decision. maxaad ku qeexi lahayd xiriirka Soomaaliya iyo UK oo dib u bilowday 25 sano kadib. So I've been really impressed at the strength of the relationship and I was impressed with it before I came here because we have a really strong Somali community in the UK who make sure that the ties and the links are good. And when I came here, I found that the Somali government has been very welcoming. I've been able to see the President, the Prime Minister, the regional leaders, the Speaker, and we've had really genuine discussions. And the UK is the second largest bilateral donor. The announcement of the British troops that we've already spoken about, the fact that we are the only Western country with an embassy here, I think will point to how important Somalia is to us and also how strong the relationship is. I've been able to see the President, the Prime Minister, the regional leaders, the Speaker. maxay tahay aragtida ku saabsan dukumeenti sir ah oo UK ay siisay sanadkii 1960 kaasoo warbaahinta ay siisay kasoo xaqiijiyeen in UK ay xilligaas Kenya ka difaacaysay qatar kaga iman kara Soomaaliya.
So this is a document that was released because every 30 years or 50 years we release our public documents from the government. So it's been opened from our archives. xaqiiqdii waa dukumeenti la sii daayo 50 sano kasta ama 30 sano kasta waxaana sii daaya dukumeentigaasi ama loogu talagalay bulshada waxaana sii daaya dowladda taasna waxay ahayd ballanqaad maalintaas la gaaray Soomaaliya waxay leedahay ciidan qaran oo aad u adag marbay qatar waxay ku ahaayeen Kenya ama waqooyiga waddankaasi Kenya aad bay uga walaacsaneed waxayna ahaayeen wabaylaha xilligan UK waxay siisay dib u xaqiijin laakiin ballanqaad toos ah ma uusan ahayn markaad fiirsid dukumeentiga waxa uu ka hadlayaa oo keliya waxa dhacay xilligaas wax la hubo oo la tixgeliya maahan waxaan hubaa in Soomaaliya ay go'aansatay balse aniga wax aan ku kala soonahay maahan gebi ahaan so I'm sure that if Somalia decided and I'm absolutely confident it won't now but if Somalia decided to dhinaca al-shabaab qatar ayaa ka imaanaya dalka Ingiriiskana waxa uu dhaqaale ku bixiyaa ciidanka AMISOM iyo kuwa dawladda dagaalka al-shabaab miyaa lagu guul dareystay haddayse ahayn maxaa horumar ah oo laga sameeyay ilaa hadda I think the fight against Al-Shabaab is a very complicated one and it's one that takes a lot of time and there have been some successes. We know that we have people defecting from Al-Shabaab dagaalka al-shabaab waa mid aad u adag waxa uu qaadanayaa waqti dheer waxaa sidoo kale laga sameeyey xoogaa horumar ah oo aad u ballaaran dhinaca kale waxaan shacabka ka difaacnay al-shabaab oo laga saaray meelo badan waxaan kale waan ognahay in al-shabaab ay kala qaybsan yihiin hadda dhexdooda meelaha furan ee Soomaaliya hadda waxaan ku difaacaynaa shacabka ku nool sidoo kale sanadkii la soo dhaafay Soomaaliya waxaa ka dhacay qaraxyo badan sidaas la mid ah dadka wali waa ay ku soo noqonayaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho dareenka aan qaba ayaa ah in al-shabaab ay lumiyeen fikirka ay ku dagaalamaan dadkuna way ku biirayaan ujeedooyin la xiriira xagga dhaqaalaha waxaan u baahanahay waxay tahay in dadkaasi la siiyo fursado ay ku abuuran karaan shaqooyin ama ugu yaraan ay heli karaan meelo ka duwan waxay hadda aaminsan yihiin sidoo kale ciidanka waa in la maalgeliyaa si ay feejignaan sare u galaan fursaduhu ma ahan in lagu adkeeyo oo keliya magaalada sidoo kale waa in la geeyaa meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah dhinaca kale waa in sidoo kale la sameeyaa dib u heshiisiin iyo nabad ka dhex bilaabata bulshada dhexdeeda Soomaaliya hadda waxay sameynaysaa horumar adag iyo barwaaqo ay nabad ay la socoto Making Somalia strong and prosperous and peaceful takes away the narrative that Al-Shabaab has. 18 bilood ayaad Soomaaliya joogtaa maxaa kamid ah cunooyinka Soomaalida ee aad ku xiiseyso Exactly. So I've traveled around Somalia and I've eaten a lot of Somali food wherever I've gone. I want to experience what it's like. waan ku safray Soomaaliya waxaan sidoo kale cunay cunto Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo xitaa kala duwan mararka qaar markaan meel aan aado waxaan ka soo qaataa khibrad taasna waa mid wax ii korinaysa waxaan cunaa cambuulo hilibka geela iyo caanaha geela xilli kastana waan isku dayaa inaan cuno aad baan ugu raaxaysaa cuntada Soomaaliyeed waxaa mararka qaar laga cunaa gurigeyga oo ku yaala magaalada London sidoo kale moos ayaan ku cunaa cuntada gaar ahaan bariiska marka aan mooska aan ku cunayo cuntada markuu aabahay uu i arko uu i jeclaadaa wuxuuna yiraahdaa maxaad sameynaysaa aabahay ayaa i arki jiray marka aan gurigeyga aan joogay oo aan cuntada Soomaaliyeed aan cuni jiray waliba muuska with rice and so when I went back to see my father he was laughing at me because I took a banana and I put it on my plate and he said what are you doing so I said I've become Somali it's official one of Somali food how to cook try it I haven't tried cooking. Unfortunately, the embassy, I'm very lucky and everyone cooks for me. And when I go out, everyone cooks for me. But I would love to have a lesson or a class in how to cook Somali food. So there's a challenge if there's anyone in London who wants to teach me how to cook some Somali food. aad baan u jeclahay inaan barto sida loo kariyo cuntada Soomaalida qof walba oo London jooga wuxuu isku dayaa mararka qaar inuu i baro sida loo kariyo cuntada Soomaaliyeed
aniguna aad baan ugu raaxaysan lahaa haddii aan hal maalin aan karin lahaa cuntada Soomaaliyeed. waxaad ka mid tahay diblomaasiyiinta aadka ula socda Twitter-ka waadna soo follow garaysaa iyo website-ka Dalsan sideed u aragtaa? As you say, I follow Radio Dalsan and I really value the work that you do, and you're one of the ways that I'm able to follow what's happening here, because otherwise we rely on the Somali media and on you for our information. So I think it's important to say now with the elections particularly, it's vital that the radio, the press have an access to be able to cover the politics, the security, some of the issues which are very difficult and uncomfortable. And I think you've done that, and I applaud the courage of journalists in Somalia and the courage in particular of also Radio Dalsan. maxay tahay fariinta ku wajahan Soomaaliya? I think my message to the Somali people is that you have an amazing country. It's beautiful, you have a fantastic beaches, you have great fishing, you have natural resources. fariinteeda ku wajahan dadka Soomaaliyeed waxay tahay waxaad haysataan dal cajiib badan, waxaad haysataan xeeb muhiim ah iyo meelo loo damaashaad tagay kheyraad dabiici ah. dadka Soomaaliyeed waa dad aad u xiiso badan oo raba inay horumar ay gaaraan. waxaan leeyahay suurtagalnimo muhiim ah ayaad haysataan hadda. fariinteeda waxay tahay Soomaaliya waxaan geyn lahaa hore, waxaan ka dhigi lahaa mid weyn. Ingiriisku aad buu u garab taagan yahay markasta Soomaaliya, waxaan jecel lahay inay Soomaaliya gaarto barwaaqo. daawadayaal guud ahaan halkaas ay noo joogo waraysigii aan la yeelanayay safiirka dalka Ingiriiska ee Soomaaliya Harriet oo dhawaan waqtiga uu ka dhamaaday safiir cusubna uu u soo magacaabay dalka Ingiriiska Soomaaliya. intaan waraysi midkan mid la mid ah aan ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaan ahay Xasan Cali Ismaan Istila oo waraysiga la yeelanayay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya. dhageystayaasha iyo daawadayaasha Radio Dalsan waxaan ogeysiinayaa in waraysigan ay ka heli karaan bogga Radio Dalsan iyo Twitter-ka intaba. nabadgelyo.